بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهي بمهد له مدحوينها جمهورية سوماليلاند مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bishii koowaad 2025 wuxuu soo saaray laba wareegto oo madaxweyne oo u kala dhignaa sidan wareegtada koowaad dhaqangalka xeerka xafiiska garyaqaanka guud ee xukuumadda xeer lambar 9/2024 wareegtadu waxay u dhignayd sidan markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay qodobka 76aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay qodobka 38aad farqadiisa labaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan helay go'aanka ansixinta golaha wakiilada go'aan lambar 10/2024 ee sumadiisu tahay 10/367/2024 kuna taariikhaysan 30 bishii 12/2024 xeerka garyaqaanka guud ee Soomaaliland xeer lambar 9/2024 waxaan soo saaray wareegtadan oo lagu faafinayo dhaqangalka xeerka garyaqaanka guud ee xukuumadda xeer lambar 9/2024 Allah mahadle Cabdirahmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland taasi waxay wareegtadii koowaad wareegtada labaad waxay u dhignayd sidan waxayna khusaysaa dhaqangalka xeerka hay'adda howlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dawladda xeer lambar 108/2024 markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay qodobka 17aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay qodobka 38aad farqadiisa labaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan helay go'aanka ansixinta golaha wakiilada ee ay sumadiisu tahay 10/367/2024 kuna taariikhaysan 30 bishii 12/2024 laguna ansixiyay xeerka hay'adda howlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dawladda xeer lambar 108/2024 waxa aan soo saaray wareegtadan oo lagu faafinayo dhaqangalka xeerka hay'adda howlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dawladda xeer lambar 108/2024 Allah mahadle Cabdirahmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan hay'adaha qaranka ee khuseeyaan labadan xeer oo maanta madaxweynuhu soo saaray waxa la farayaa in xeerarka madaxweynuhu soo saaray labada xeer madaxweynuhu maanta soo saaray ay sidooda u dabaqaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullah.